aad iyo aad ayaad gudoomiye u mahadsantahay sida aad noo sharifteed naga ogolaatay inaanu waraysi kaala yeelno siyaasadda Somaliland iyo siday u socoto haddii aan ku bilaabana waxaan jeclaan lahaa bal adoo soo koobaya taariikh nololeedkaagii CV-gii oo inaad in yar aad nooga sheegtid markaad dhalatay halkaad ku dhalatay ilaa iyo yoomina hada ilaa maanta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا horta waxaan dhashay waad garanaysaa waqtiyada anagu dhalanay de isbitaal kuma dhalan taariikh marka hadii la qorayo rasmi ah ma jirin laakiin Soomaalidu taariikh fara badan baa iska jiro qofka noloshiisa marka lagu qiyaaso aabahayna wuxuu ahaa Somali Scout military-gii waqtigii Ingiriiskii oo ciidamadu ahaa markaan waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1938 April bisha April Soomaalidu waxay tiraahdaa sanadka soo xaloodan jiray sanadkii arbacada macna waa waqti ay jirtay waqti abaaro arbaca loo oran jiray marka siyaasadda waqtigaad ku biirtay goorman ka soo qaadi karnaa siyaasadda waxaan ku biiray 1900 iyo de waxa weeyaan horta markii horeba siyaasadda dhinac waan kaga jiray anigu dibadda joogaba laakiin ma ahayn political activities oo nin political activity leh oo dad ku shaqeynaya ma aan ahayn laakiin waxa weeyaan siyaasadda rasmi waxaan ugu biiray waxa weeyaan 1998 ha January waa hagaag wadigan taageere ururkii kulmiye mucaarado markaa taageeris حزب الدولي مع حاكمكي موهاي doorashadii ku guuleystay ma ii sheegi kartaa waxa uga tagtay halkaad kaga biirlay xisb al-xaakim inuu noqdo ee aad ururkan u furatay waxaan uga tagay waxa weeyaan waxaan arkay astaanta uu leeyahay isaga laftiisu inaanu ka duwanaan doonin ururkii uduban ka soo dhaxbaxay una noqon karin mid inta ku biirto dabeetana dadku ay yeeshaan xuquuq siman ay ku tartami karaan ay tahay iyada lafteedana inay rag iyaga laftoodu isgarbinaya oo hadiya jeerad moodo inay rag xiniyaha leeyihiin oo qura iyagu ay yihiin inay isku garbinayaan meesha oo aanay jirinba jaanisad ku kali kartaa oo erayada lagu dhawaqaana ay tahay uun shalay baad noo timid siyaasaduna de ma shalay baad noo timid waa ninkii wax talin karayo marka taasaa keentay in aanan ku biirin oo aan arkayo in aanan jaaniska aan doonayo inaan urur siyaasi iska soo sharaxi kara aanu suuragal ka ahayn kulmiye dhexdiisa ay wada libaax yihiin gudoomiye dhaliilahaasi ma u sheegtay xisbiga kulmiye oo ma tiri waxaa jira ee wax ka bedela ma uma sheegin hadaan u sheeganay may qaadanaynin rag badan oo ku jiraana may jeclayn inaan ku soo biiraba waxaan aaminsanahay haddii adigu markhaati furtid kulley waxaa qof kasta oo urur ka mid ood adigu ka mid tahay gudoomiye wuxuu socdaa kursigan sare inuu waddankan hogaamiyo soo saama afar dawladood ayaa imikayna soo maray allahu naxariistay cabdiraxmaan maxamed ibraahim cigaal allahu naxariistay daahir riyaale iyo madaxweynaha hadda axmed maxamed maxamuud maxaad isleedahay ismaaciil afartaa dawladood ayaa qaban waa kursiga haddaad ku fadhiisato waad soo kordhinaysa waxaad isleedahay horta dee madaxweynuhu raiisul axmed maxamuud cali mahay dee madaxweynuhu ahaa dhawaaqii ugu horreeyey iyo magacii ugu horreeyey ayuu qaatay inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee markaa ku meel gaarka loogu dhiibay magacii dawladnimo ayuu ku dhawaaqay oo de markaaba la gaarsiiyey inaynu dawlad noqonnay la yidhaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu axmed maxamuud cali waxaanu arkaa inaan isaga waqtigu inuu caadi cidhiidhi ahaa oo rag fara badan oo deemakaba jooga siyaasiyiinta axsaabta kamida kulmiyaha u badnaada inaanay jaanis basinin inuu wax qaban lahaaba wuxuu qaban lahaa hase yeeshee magacii buu taagay waana ku dhawaaqay madaxweynuhu ka noqday waa qof wax soo qabtay buu ahaa waqti badan wax ku soo qaban lahaana lama gaarsiinba waxa ku soo xigay maxamed xaaji ibraahim cigaal wax fara badan buu soo qabtay base asaas markaasuu la qoday oo seeskii aan lagu ridin oo cidii ku ridi lahaydna aan laguba simin buu seeskii ku riday uu soo dhisay gurigii buu dhismihii soo saaray uu soo waday jingadii buu soo saaray dhamaystirkeedii buu soo gaarsiiyey haykal dawladeed oo dhisan oo maamul iyo kala dambayn leh oo baarlaman leh
oo guurti leh oo ciidamo qaran oo militariya leh oo biliis leh oo asluub leh oo wasiiradii leh oo maxkamadihii leh oo dawladdii haykalkeedoo dhammi u dhan yahoo shaqaalaheedii leh wasaaradaheedii leh ayuu soo dhammaystiro wuu soo dhammaystiray meel fiican buu soo gaadhsiiyey markaa wax dhisan oo asaas ka soo bilaabo guri dhisan oo dhisay ayaa la soo gaadhay isagoo sidaa wuxuu soo wareejiyey daahir yaala kaahin daahirna halkiibuu ka sii jaan qaaday tabartiisu waxay noqotay isaguna uu soo dhisay haddaan bilmasel wasiir baan ahay waxyaabihii qabtay aan wax ka sheega bilmasel aanu siyaasadda dee iskaga hor imaadno haddana qofka intiisa lama qarin karo bilmasel dee nabadgelyada aad buu ka shaqeeyey marka tananu ka shaqeyn nabadgelyada aad buu nagala shaqeeyey meel fiican uu nala soo gaarsiy inkastoo nasiib darro waqtigii aan ka tegey qaraxyo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan oo xagga nabadgelyada dhaceen laakiin waxa weeyaan aad quraan tiraa walaa tansa nasiibaka fi dunya waxa horta ninkan shaqeynaya ama madaxweynihii ama wasiirkii la magacaabay nin walba nasiibkiisu wataa nin walba karaamadiisa ilaahay siiyana wuu wataa dadkuna waa kala karaamad duwan yihiin waana kala nasiib badan yihiin cid walba way leedahay marka daahir nabadgelyada wuu ka soo shaqeeyey si fiican nabadgelyo runtuu ka soo shaqeeyey mararkii dambe dhibaatooyin fara badan ha dhacaan wuu soo dhabar adeegay wuxuu soo dhabar adeegay waxqabadkeedii iyo sabirkeeda ahayd mucaaradad aad u fara badan oo cunsuriyad badan faransaarantay baa ku soo dhacday wuu u soo dhabar adeegay taa wuu ka soo gudbay runtii waxqabadka dawladnimo kale haddaad eegtay haykalka waxaa ka mid ahayd waanu dhisnay ciidamada badda oo xeebaha ilaaliya oo biliiska kuwii la dhisay bay ka mid ahayn waqtigan wasaaradda joogay waxaa ka mid ahaa ciidamada aad iyo jeer kulmiya nugu eedan jireen ay odhan jireenoo kuwii maanta dee wax ku qabtaanba ee SPUda la yidhaha special protection unit la yidhaha inkastoo la sheego lagu yidhi magac kale u bedeleen waa dee caadi magac kale dii u bedelan dhibaato ma lahe laakiin SPU un baan aqaano special protection unit qofkii aasaasay magacan bixiyaan uu ahaa cidii gacan ugu siitay madaxweyne waqtigaa joogay haddaanu gacan ugu siin wax suuragal nooma ahaateen ilaa imikana waa la yidhaahdaa waa ciidamada quri u heegan u mar kasta meel kastoo nabadgelyo darar ka dhacdo waxyaabii waqtigaa lanagu eedan jiray in ciidan loo samaystay oo xisbiyada inkan loo samaystay maaha anu haddaan imika aroorta rabshad bilaaban mudaharaad sharci aan ahayn doono inaan sameeyo oo mucaaradad xunoo fool xuno dadkan iyo dawladdaba ku xun sameeyo dee SPUda loo soo diraya la odhanayaa joojiya waxaa waqtigiisii loo isticmaalayo iyaguna siduunba u isticmaalaan waa ciidamo qaran oo biliiska kuwa waa la soo dhisay waqtigeeda baa la soo dhisay ciidamadii militariga runtii kolkaad sii eegto ciidamada militariga xoogga ugu weyn buu saaray wax fara badan buu u qabtay beebeeyadaad aragtaa waxay ahaayeen qolof lagu kaajo hadda waa qolof biro oon wax kale ku xidhnayn walaa taayir walaa waayir walaa isteer waa qolofto sideedii qalliya baa gudoomiye adigoo iga raali aan ka dhaxgalay laga sheekeeyay oo idaacadaha telefishinada waanu ka daawanay xataa anagoo dibadda joogna marka daahir ka soo gudubtid wali tiibaan daba socda maxaad soo kordhin lahayd madaxweynaha hadda ayaa yimi ilaa beebeeyada socodad aragtay waqtigii daar ciidamada qaranka runtii meel fiican buu soo gaarsiiyay wuu ku dadaalay gobolada bariga isagoo dhaqaale wax walba wada wakiila la saanoodka degay dagaalku kaga dhaceen daahirsaas meel soo gaarsiiyay tabartiisu waxay doonto ma noqotay saddexda madaxweyneba nin walba teedo la waxaan ka sheekan karayo ku soo koobi karayo maaha halkan iyo warayska waraysanaysan Axmed Maxamuud Siyaana de maanta ayuu hayaa joogaa wada ogtiin haddaynu sheegno intuu qabto qura bilmasal intaan anu imika sheegi karo waxa weeyaan mar qura ayaa Maxamed Xaashi markuu joogay runtii wasiir aad iyo aad uga adag ahaa ayaa miisaanadu halka ahayd 43 milyan bay ka ahayd ayuu mar qura yidhi 3 laab iyo 2 laab iyo 3 laab waan ku dadaynu gaarsiino markii ugu horeysay 380 milyan buu gaarsiiyay yani waa 2 laab waxaan rajaynayaa Cabdicasiis soo bedelayna inuu halkii ka sii shaqadu ka sii koriyaan aad uga rajaynaya marka taasi waxay keentay marka in marka wasiirkii maaliyadda Maxamed Xaashi markuu joogay in la gaarsiiyo 2 laab miisaaniyada in la yiraahdo shaqaalihii mushaharkiisa double baa laga dhigay ciidamadii qaranka biliiskii militariga asluubtiina double baa laga dhigay waxyaabo far badan oo saas la qabto aan anu waxaan oran jiray may horta hubsadaan bal 1 year dakhligoodu wuxuu noqon doonaa yani geesnimay sameeyeen iyaguna waxa dambe qaban doonaa way u dhimantay ballan qaadeen taa way qabteen waxa kale oo cajiib ay qabteen oo madaxweynaha halkan uga mahadnaqaya oo si geesnimo ay u sameeyeen oo rag fara badan oo ururkiisa ay ka soo horjeedona aan ogoleyn oo lobin fara badan adag iskaga wada hornimido xaalad adag oo ayaguna ku diidayeen ururada in lagu furo annaguna aan leen ururada lagu furo aanu iskaga hornimido isla xisbiga kulmiye ka tirsan de madaxweynuhu geesnimo dhiiraanu sameeyay mu eegin xisbiga raggiisa ku jira rabitaankoodii qaarkood way dooneen ha yaraadaanbe marka geesnimadu waxa weeyaan wuxuu ku dhawaaqay ballankii uu qaaday buu fuliyay waa wuxuu qabto ururadii buu furay maanta ururadii uu furay waa kan marka annaga keenay inaanu urur ka mid noqono ururada soo baxay ee ku guuleystay inay ka qayb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka su'aashi taa weyn iman doonaa
su-aashaydii ku soo noqo maxaad is leedahay lama qaban waad qaban karta marka waxa weeyaan wax fara badan ayaan la qabanin oo jecelahay waxa aan ka qaban karay inaan ka qabto haddii ilaahay dhacdadan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo saddexda xisbi qaran mid ka mida isagaa bixiya ilaahay umaanu ka jeednay inuu nagu guuleeyo haddaanu weyno nu heli weynana waxaan ilaahay noo qadarin maaha inaanu meel ka qaylin doono maaha waxaan anagu qaban doonaa waxa weeyaan ku talagashanay programkayga aan ku talagashanay waxa ka mida intaad madaxweynaha tahay haddii aanu helaba madaxweynenimada aanu ku guulaysano isbitaalka Hargeysa burco quro dhisto oo laba isbitaal oo dadka ku filana oo kaliya wax qabadka weyn oo qura taariikh aad ka tagi karto noqon kara haddaad ka soo qadamka isbitaalka Hargeysa haddii wax aafiin ugu dhacaanba oo duruufo roobabku nimcadu waxay leedahay dhibaato oo intaasoo dad ku dhaawacaan intaasoo ku dhintaan ama dagaalaba inagu yimaadaan intaasoo ku dhintaan ama cudurro kale ba yimaadaan oo dhibaatay ma hayno meel isbitaal qura oo qaada dadkeena aanu dhignaba waa wada private wax qabadkayagu anaga markaa wuxuu noqonayaa inaanu waxbarashada wax ka qabano caafimaadka wax ka qabano caafimaadka haddaan iyarkaaga taabtaa farabadta maxaa ka mid ah waxaan leenahay reer guula waxaan leenahay tuulooyin waxaan leenahay degmooyin yaryar oo aad la deen la magacaabo aad arki kartaa xataa inayna degmada qaadi karaynin ma soo gaari karaan waxaanu ku talagalnay qorshahayga inaanu degmo walba u samayno waxaanu qaban karno ambulance iyo neerskii dadkii dhakhtar caafimaadka wax ka garanayay iyo dawadii u taala si ay ilaa reer miyiga umusha u baahan umulsadii halka ugu joogto loo gaarsiin karo waxaan ugu talagalnay inaanu u samayno mobile units dhakhtar saaran yihiin oo gobol walba ka bixi kara labadii bilood mar oo dadka danyarta iyo tuulooyinka iyo degan rural area iyo reer guuraaga ah ay soo mari karaan oo eegi karaan oo ku daweyn karaan in soo gaari kareen hadii jar ku dhimanaya waxaanu ku talagashanay biyaha dooxyada ka dhacaya dhulkeenu aqoonsi intaan la gaarin dhaqaalihiisu dhisi karaa inaanu biyaha xidhiya ku samayno oo Soomaaliland dadka aqoonta leh dibadda joogay gudahaba ay dalkan u faa'iideeyaan oo kursiga nagula soo fadhiistan idhaahno ay keenaan qaabkii biyaha loo hakin loo joojina barrier lagu sameyn lahaa daam looga sameyn lahaa ay keenaan sidii beeraha loo sameyn lahaa loo fulin lahaa waxaan ku talagashanay ciidamo fara badan oo biliiska inaan qorno iyo militariga iyo asluubtaba anagoo xoogooda ka faa'iideynayna oo dhalinyarada fara badan ee suuqa maanta joogta ay noqonayaan kuwii beeraha wax ka qabsan lahaa fali lahaa sayn hore u soo baranay waxaanu ku tala jirnaa sidii dawladii hore aan jireen inuu national service wixii lahayd soo celino oo moorarka dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxay cidlada taagan aan bari hore lagu fadhi sarkaal baan noqonaya wasaaradda balaayan u shaqo tagay waqtiga aynu soo gaarnay dawladii hore dhisnaayeen maanta inuu waxba ka fikiraya sidee aad waxbarasho u shaqeeyo hadduu helo halkeed ka shaqeynaya sidee u taariibtaa ku fikiraya marka maanta oo dhan kama sheekayn karo waxyaabaha ku tala jirnay inuu qabanno hadii Ilaahay nagu guuleeyo ururka waad furtay yaa kugu dhiirigeliyey ee kugula taliyey ururkan inaad furto mise waa fikradun adiga ka timi way jiraan runtii rag ugula taliyey waxaan xasuusanahay aan horta taadii ka boodin waxa weyn kalifaadiina kaliftay waaniga ku sheegay in ururkan yimaado inaan furo waxa kalifay saddexdii urur oo nin walba bug la hor fadhiyo aanu ogolaynin kale inuu iska sharxi karo cid kale aanu ogolayn maantada kulmiye wax laga yaabaa nin ba hor joogo ma ogolaynin kale iska sharxi kara وعد وادركتان way soo taagna wadaragtaan udub waad soo aragtaan dhibaatada maanta ka tago soo aragtaan kalifaadii horta keentay inay ururadu furmaan waa sida anagoo maanaan jeclayn ururba furmaan saddexda xisbi jiro in la ogolaado in dimuqraadiyad dhexdeeda ka jirta waa la soo waa marka hadda tiraayo ku galif waxaan xasuustaa anagoo daroor tagnay kulleelkan uu ka dhageysanay magaciisa ka sheegi maayo siyaasadman uu ka sheegay iyo rag barfadoo kamid ah way ugu dhiiriyeen waxay ugu yiraahdeen inaad urur noqoto musharax madaxweyne doonato oo aad musharaxnimo madaxweyne doonataa waad ku haboontay waad qaban kartaa marka dad fara badan oo fikirka isiiyay way jiraan sida waliba dadkan hore u maray sida inuu gudoomiye ku naqaanay ama Europe ama Mareykan aduu dalka hore u maray iyo inaga laftirkeenuba wada tashiga wuxuu ka bilowda qoyskaaga ma ka talagelisay ururkan aad furayso maxay ku yidhaahdeen wallahi qoysku de way dadku qoyska waxaan iska weydiino waan soo hor fadhiisan marka in badan oo ku oranaysa waad ku haboontay inaad wado na way jirtay in badan oo kula jecel oo doonaysa inaad noqoto way jirtay laakiin su'aashii ku weydiinayaan waxay ahayd yaani waa inaan taxqiiqda ka sheegay maadaama aad wareysanaysid way wareysi waliba taariikh buu leeyahay in badan oo oranaysa baa jirta miyaad u haysaa dhaqaale waxaan dhaqaale miyaad u haysataa aad doonayso inaad soo sharaxdo marka qaar waxa ku oranayaan iska qaar baa u arkayo oranayay nin kale oo reehebela oo aad sida isku tihiin
ayaa dee haysta ururkii xisbigii kulmiye oo musharaxa markaas sidee u wada noqon karaysaan labadiinu markaa waxaa ka maqnayd inay madaxtinimadu inan iyo aabbihii ay isku inqilaabaan waxaa ka maqnayd himiladu qofku leeyahay inaanay ku bayskaraysnayn beel iyo qoys waxaa ka maqnayd codka qofku uu ka doonayo madaxtinimada uu dalka dadka ka doonaya inaanay ku bayskaraysnayn beel ama jifada reerka aad ka soo jeedee ay tahay mid aad ka doonayso ummadda Soomaaliland oo dhan oo joogta meel walba marka waxa weeyaan waan ku qanciyay waana ku qanceen kuwa badan oo markii hore dee oranayay wallahi uu kaadiyo joog laana imika ayay noqdeen iska dhaafay shirki oo horeeyay markaan qabtay ayay qaar shirki ka dhaxooyeen yaani taageeradii dadkii iyo shirka aanu qabsanay iyo soo socdeen kuwii kale kasi harsanaan markii ay soo bixinta dhacday dee waa ku bariyay bay noqotay ama qaar fara badan oo ururada kale taageerayay ayaa waa ku noqotay sidan ba maanaan moodaynin inay wax noqonayaan marka waxa ka maqnayd meeshan xukunka ilaahay mar walba inuu jiro qofku aaminaaso waxana ay tahay wax ilaahay hima ilaahay wuxuu bixiyayna tahay gudoomiye bulshadu waa dhowr qaybood waa qaybo badan tahay hadda halkan yar kugu celiyo waxa weeyaan bilmasal ninka baarlamaanka iska soo sharaxay hada jeer beel baa wax siisay inuu dhaqanka u leenay ama golo deegaan ha noqdo ama golo baarlamaan noqdo madaxweynenimadu way ka duwantay madaxweynenimadu waxa weeyaan waa waxaad ka doonayso codka shacbiga reer Soomaaliland maaha reer hebel qabiil oo qori haday ku wada siiyaan ay tili karayso maaha wayna noqotay in xisbigaagu ka kooban yahay reer Soomaaliland dadku degan waa inuu noqdo cod kamid ka heli karto waxaan uga jeeday qoyska markaan ku lahaa gudoomiyaha raalaha yaani caa'iladaada familka caruurtaada waaye caa'iladaada ula jeegta caruurteeda iyo cid waliba way ugu taageerisay waxaana leenaaba wad ku soo baxaysaa wad aad baan ugu tagay imikada way la joogan saasay yaani mar walba igu dhigri galinayeen laakiin markaan caa'iladaada leedahay taynan kaaga jawaabayo waan ka yara balaadiyay oo xaqi beeshan sii gaarsiiyay waaye bulshadu way qaybo badanta dhalinyaro dad waaweyn haweena laakiin dhalinyaro marka leeyahay wiilal iyo gabdhaba dhalinyaro jira iyo dad odad baad doonaysan inaad soo baxdaan halkee targetka ama bartilmaameedkeenu waa dhinaca bulshada qaybtee si aad ugu soo baxdaan dadka waaweyn dhalinyarada haweenka kuwa idina targetkeegu aniga ururka dalsan hadaanu nahay ee bahweynta Soomaaliland oo dhan ka kooban targetkeegu waxa weeyaan dhalinyarada oo rag iyo dumarba leh waa kuwa cod ka bixiya ee codka u soo jeeda waa kuwa daneynaya isbedel inuu yimaado kuwaas targetkeegu anaga yahay maxaad isleedahay ma hayaano adu haysaa iyaga waxa aanay haynan u hayaa waaniga ku soo sheegay waxa weeyaan waa wax qabadka aanu kordhinayna tayada leh haddii ilaahay xukunka nagu soo wareejo aanu wax bedelka ku samayn doono hadday tahay caafimaadka hadday tahay beeraha hadday tahay waxbarashada hadday tahay shaqa abuurista intuba waa wax noo qorshaysan dhaba maaha waxaanu dadka siyaasad kaga doonayno waanaga kaaga soo sheekaniyay caafimaadka waxyaabaan ku tala gashanay waa wax la qaban karo fudud iska dhaafto kale wax la samayn karaa caasimadaha weyn oo sida Hargeysa burcad ku bilaabi kartaa mid walba inaad hal helicopter keento maaha wax qaaliya oo tayadeedu waxay saaran yihiin communicationku maanta meel walba u yaala oo qofka muwaadinka ee ilmaha yar ka go'ayo ilaahay baa haya waqtigiisa ajashiisa ama gabadha foosha isku saaran xuquuq bay dadkan iyo dalkan ku leedahay waa wax fudud inta la qaado in halka laga soo qaar karo waa wax fudud aan balaasina u samayn kartid degmada joogi karto oo reeraha degan yihiin intuu ninku ka soo lugayo ama telefoonku ku haystay imika kuwa harta jooga halkan kala ka harta telefoonkii Soomaaliland ama xarshin jooga ama xuduudaha dhown jooga waxay haystaan mobilka xitaa Soomaaliland kala hadli karaysa marka waxa weeyaan waxa soo dhamaanu sheegayna waa wax la qaban karayo oo aanu qaban karno ururkaygu ku tala jiro marka waxaan ugu baaqayaa isbedel baleed doonayeen in ururkan uu hayo waan ku soo dhaweynaa horana afka waad ugu dhufatay furitaanka urur siyaasadeed ma dhib yara saad sheegaysay xitaa caa'ilada ama qoyska qaar baa kala tali siiba dhaqaale aad u badanna waa la rabaa gudoomiye xageed ka keenaysaa dhaqaalaha runtii waxaan ku rajaynayaa aad iyo aad ugu rajaynayaa inaanu bulshooyinka reer Soomaaliland meel walba ha joogaan intii hore imika la soo baxayna hanti fara badan oo leeyahay waan galiyay waa aad u fara badan runtii marka doonayso inta dambena waxaan ku rajaynayaa bulshooyintu maadaama maanta aanu banaanka u soo baxnay golayaashii deegaanka yihiin tawo horeysa la qaban doono ku xigi doonta noqon doonta baarlamaankii inuu insha Allah waxaan rajaynayaa contribution fara badan ka heli doono annaguna kulli ma madin ku talagalka waxaan ku talagalay inuu hawshan ku wadno waayo nin isu soo taagay inuu urur furo siyaasiya maaha wax
cayaara uu garan karaya ama khibradeedan leeyahay ama intaasan ka soo shaqeynay wasiir daakhili u soo ahaa dhaqaalaha ku baxaya say u dhib badan tahay lobinkeeda kuwa kula joogay xataa qaar ka jiraan oo wuna kula jooga haddana uu ka jira dhaqaale fara badan baa ku baxaya marka kama faramarni igamana maqan ku talagalkeedan waan leenahay insha Allah ilaahay wax ka rajaynayo inuu ku guuleeyo wagaag kala saarista ururadan iyo saddexdii xisbi qaran ee hore sagaalba lagu tartamaya waana doorashadan ugu horeysa ee golayaasha deegaanka waxa laga yaabaa bulshada Soomaaliland inteeda badani inaanay fahamsanaynba golahan deegaanku waa maxay bal in yaroo sharaxaad naga sii waa maxay faa'iidadiisu golayaasha deegaanku faa'iidadiisu waxa weeyaan waa inay degmo walba oo kamida wadanka degmooyinkaasi aan ka hadlaya waa kuwii hore loo ansixiyey ama hore u soo jiri jiray waqtigii ingiriiskii ama waqtigii dawladda Maxamed Siyaad Barre degmo laga dhigay la aqoonsaday ama intii dawladda Soomaaliland jirtay degmo loo aqoonsaday ee golayaasha markii la ansixiyey ayaa horta degmo la yiraahdo waxa jira degmooyin fara badan oo cigaal magacaabay oo baarlamaanku ansixin degmo maaha maamulka xaqiisu ma degmooyin doorasho kama dhacayso qaar badan oo riyaal bixiyay baa jira degmo maaha maamulka dawliga markaa jirun bay degmo u yihiin maaha degmo doorasho ka dhacayso degmooyinka haddaba ay doorashooyin ka dhacayso waxa faa'iidada golayaashan deegaanka loo dooranaya tahay waa dadka la doonayo in lagu beero aqoonta loona sheego lana gaarsiiyo waxaan dadku u dooranayaan inay tahay inay ka turjibaan rabitaanka shacabka iyo waxqabadka dadka deegaanka ay ka soo jeedaan laakiin weli ma fahamsana taa waxa la doonayaa in wacyigelin laga sameeyo oo xukuumaddu ka sameeyso qofkan golaha deegaanka la soo dooranaya maaha ana la soo doorto kursigan ku fadhiistay oo xubin golaha deegaanka Hargeysa ka soo baxo reer hebel aan ahay maaha macnaheedu waxa weeye dadkii soo doortay iyo degmadii laga soo doortay iyo waaxdii laga soo doortay ayuu wakiil uga yahay baahidii uu ku lahaa xuquuq ahaan wadanka iyo dadka iyo dalkaba iyo dawladaba inuu wixii ay leeyihiin uga doono oo uga keeno waa sida macnaha deegaanka waaye ma idin diyaar baa imika idinka golayaasha deegaanka intii idin ka qayb gali lahayd haddayse idin diyaarin ma kalidiin baa soo xulay mise dad baad kala tashateen nooma wada dhamaystirna meel walba laakiin inteedii badnayd baan haynaa waayo had iyo jeer waxana waa wax soo bixida saddexda xisbi qaran waa wax samada ku qoran oo qayb oo ilaahay baa la yaclamu al-ghayba illa Allah laakiin adiga waxa lagu diray in dadaal samayso dadaalka sameynaysa qofka bilaadanimo ahaan aniga aad baan u aqoon yaray aqoontada iyo muuqda waxa weeyaan iyadoo tii ilaahay uu mar walba tahay in dadka cod kale codka la soo bixi kale iyo kartida leh ay dadku rabaan siyaasiyan inay doortaan waa inaad ku dadaashaa oo aad kaas noqda ka heli karto ee golaha deegaanka soo sharxi karto waa laba laakiin se gudoomiye cod baa doonaysi waxa laga yaabaa ururada qaar ama dadka qaarna ay u fakeraan qofka ay ku qoranayaan inuu noqdo deegaankaasi reerka ugu badan ama reeraha faraha leh qaarna waxa laga yaabaa in ama adiga ama qof kale uu ka fakerayo muxuu qofkan u qaban karaa deegaankiisa labada midkeed raacsantiin ma faraha inaad ku xusaan mise qofkani inuu wax qabad yahay awka horta de waraysiga hard talk buu badan yahay laakiin I like it waan jecelahay inaan wariyo saasoo ila kulmo caalamiya oo international sida awka inuu waraysto runtiina Axmed Saciid Cigo ayaa marmar de wax yara weydiin jiray aad baan ugu farxay waraysiga waxa weyn awka waqtigii Hargeysa bariyihii hore dadku qabyaalada aad bay u sii hooseysay waqtigii la qixi doonana intaan la qixinna qabyaaladu aad bay u soo yaray oo dadku wax qabadkii hebel baa la eegi jiray waxa laga yaabaa oo ka marka la yiraahdo ilaa ka zeyla ila ma ka halka darafka ugu sheegay jooga inuu ma garanaysa halka ay la socono dama ila erga halka ugu dambeeyay jooga inuu cod ka siiyo waad garanaysaa Hargeysa waxa laga soo doortay golaha deegaanka Shuuriye waad xasuustay 60kii nin odayna uu ahaa nin aad u fiican uu ahaa dadkii wanaagsan reerkiisana qabiilku may baysi garaysnayn oo hadii qabiilku ka dhashay soo dooran codba kuma soo saari karay waa runta laakiin maanta xagga dib bay ugu noqonay marka hadaad weydiisay ma qabo in la heli karayaba nin golaha deegaanka oo dadka kale intuu ila golaha deegaan musharax ka Hargeysan ka taagana beelaha kale codsiin karaan qaar waa laga yaabaa in iyagoo beeshu ka dhashay aan ahayn caaladnimo iyo xididnimo iyo saaxiibtinimo iyo waxyaabahaas waa lagu siin karaa qofka that's a very small number waa number aad u yar
inuu dadka codka helan waa very slim marka waxa weeyaan mar walba waxay ku base garaysan tahay sida aad sheegayso beelaha waaweyn ku base garaysan tahay lagama tagi karo waliba waa inaad xagga diga weydiinaysay odayaashooda iyo cuqaashooda iyo dhalinyaradoodu ay qofkaas musharaxa ka noqonaya ay isku raacsan yihiin si aad u garan kartid inuu ururkii tabar iyo tayaba ugu yeelan karo ninkan aad ka soo sharaxday marka kama marna taasina waa waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay thank you chairman wasagaal imika inta tartamasa 3 xisbi qaran iyo 60 urur saddexdii hore haddaan soo qaado adiga ka guddoomiyahaan waaye arag baad u tahay siyaasadda Soomaaliland ma kula muuqataa inay soo wada noqonayaan saddexdii mise waxaad isleedahay soo ma wada noqon karaan ee qaar baan soo noqonin hortaan magacba sheegin ma horta intaan magacba sheegin magaca laftiisa haddaan sheegno aniga wax dhiba uma arkayo way waxbaad weydiistay inaan fikirkayga saliimka dhiibtana weeyaan waxa weeyaan saddexdaa hore ma garan kara wallaahi kulmiya dawladnimada waxay ku keeni doonaan waayo dawladu waa dawlad ya dawladu waa dawlad laakiin iima muuqato labada urure kale wax jaanisay leeyihiin haba yaraatee labada urure kale ama udub hadday tahay ama ucud hadday tahay jaanis ayna ku guulaysan karayaan wax ii muuqda maaha burbur badan uu ku soo dhacay ma filayo dadkuna de isbedel bay doonayaan in halkii hore ku noqdaan umadu diyaar uma aha marka ma filayo dalsan ahaan rajo intee leeg baad guddoomiye ka qabtaan inaad soo baxasaan rajo aad iyo aad u weyn baanu ka qabnaa inaanu ku soo baxno inaanu ka mid saddexda xisbi qaran ay soo bixi doona ilaahayna waxaanu ka baryaynaa haddaanu ummadda khayr u nahay annagana ay khayr noo tahay haddaanu ummadda khayr u nahay oonu khayr u wadno iyo wanaag annagana khayr ay noo tahayna fidna iyo dhib nagu ahayn ilaahayna waxaanu ka rajaynayno ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo rajo weyn baanu ka qabnaa inaanu ka mid noqono saddexda xisbi qaran ee ku guuleysan doona doorashooyinka golaha deegaanka sida aad la socotid waxaan filayaa inaad daawatay berigii hore 2009 maran halkan joogay waraysi baan la yeeshay guddoomiyihii kulmiye markaasoo madaxweynaha hadda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo guddoomiyihii injineer Faysal iyo madaxweynihii waqtigaas oo daahiriyaalaha su'aalaha isku midaan weydiiyey waxa kamid ah su'aalahan weydiiyey haddaad ku guulaysato doorashada madaxweynenimada ururada siyaasiga ama furasa madaxweynaha hadda jira marna carabka aad ku dhufatay madaxweynaha hadda jira wuxuu yidhi waan furaya ballantii uu ka soo baxay inta ay jireen waa 10 sano wax badanimo dheera ka guddoomiye ahaan siyaasad ahaan ma waxa kula qurxoon imika ama kula qurxoonayd inay loo daayay la 20 sano oo waxani inuu xoogaysto mise imikadan waxaad adigu ku talinaysaa 10kii sanaba in la furo ururo runtii waxay tahay jawaabta saadada weydiisay sidaba ururkan wuxuu hoggaansan yahay marba shuruucda ka soo baxda dawladda ee ansixiyaan labada gole ee jira mar walba kuwaasumaan anugu ayidsanahay aqoonsannahayna kuna dhaqannaa nidaamkaan nafaraya sidaa haddaad se fikirkayga gaar ahaan oo qof ahaan ama urur ahaana i weydiiso waxaan qabaa inay ku xidhantahay taasi sidaa la qoray 10 sannadoodii in isbedel ka dhici karo haddii saddexda xisbi qarane ilaahay ku guuleeyo soo bixi doona ay noqdaan qaar dimuqraadiyo cid walba welcome leh oo ciddii tiraahdo waanu iska sharaxayaaba iska sharaxi karto ay noqoto inaan loo baahanba doonin in la yidhaa ururada hala fure laga noqon doono baahida loo furana ay ahayd uun iyadoo ay dimuqraadiyadii ka muuqan weyday saddexdii xisbi qaran ee jiray in qofkii le musharaxnimaan ka doonayaaba inuu iska sharaxo dhibaatada maxaa ka mid ah minister waxyaabahaas oo kale marka ururka dalsan oo kale haddaan musharaxa markan ka ahay dee hadday noqoto dadka ka soo gelaya shirweynaha inaan anugu gacantayda ku wada qorto oo dad wax magaradaan qorto aan dabeetana waxaa dadkaasina magacaygiin loo dhiibo meesha ay yimaadaanun waxay ugu dhawaaqeen gacantaagunoo ismaaciiluunu noqdo dee dimuqraadiyad ka mid maaha waa inay noqdaan dadku marka hore xisbiga dad u rajistar garaysan oo cid kastoo xisbiga ka mida liiskaa heli karto oo hadhow dadkaa la keenaya ay noqoto guddidii fulinta isla jirtay dad ay wada salakt gareeyeen oo hadduu ku jiro mid himadiisu ay tahay inuu sharaxi karaa bartner ka noqdo dadkan dooraya dadka ka soo qaybgelaya shirweynaha cajalada inaga dhammaanaysa si aynu u soo koobno waxaan ku weydiin lahaa wadahadallada imika Soomaaliya iyo Somaliland
ma fikrad toosan baad u aragtaa mise fikrad qaldan labadaa miduunidh waxaan u arkaa fikrad toosan waxaan ahay tii madaxweynuhu intuu noogu yeedhay nasiibka aanu maan joogin maalintaa uradii gale maan ahayn laakiin majoritigii tegey baan codkooda ku raacnay maadaama uradii siyaasiga ahaa iyo kuwii hore xisbiyada ahaba ku raaceen iyo golayaasheenii jiray qarankuba taasaan anuna adeeysanahay waxaana ii caddaynaysa inaanay waxba xumaynaynin inay wax wanaajinayso dadku waxay idhahaan soomaali weyn baa naloo wadaa kanaa loo wadaa wasiirka arrimaha dibaddu dharaartii dhoweydoo hadlayey raadkiisu wuu sii qoyay waa kii ka hadlaya turkiga inay qaataceen wuxuu sheegay inay u qaataceen nidaamyadii lagaga qaybgeliyey shirka ay ka qayb galeen ingiriiska ya lagaga qaybgeliyey daraja ahaan somalilan halka maqaamkay lahaayeen lagaga qaybgeliyey inaanay kuwani kaga qaybgelina diyaarna u noqonin ay tahay inay ka mid yihiin gobollo ka mid a soomaaliya marka waxa weeyaan wuxuu sheegay inay tahay dawlad mustaqil oo goonisu taagtay aqoonsi ka doonaysa dawlad doonaysa inay ka wada hadlaan cid kastoo doonaysa inay wada hadlaan ama Soomaaliya ama cid doon noqoteen iyadoo laga noqonin goonisu taagi Soomaaliya aynu ka go'nay aynu Soomaaliland ku noqonay marka kaasi waa mid aan ayidsanahay ee maaha mid aan ka soo horjeedo marnaba adigoo isoo koob bala 3 daqiiqo inoo hadhay muddo intee leeg badan imika Soomaaliland ku sugnay Djibouti ka soo noqdo may tan iyo waxa weeyaan maalintan ka yimid Ingiriiska 1998kii ilaa imika waa qariib 13 sanadood saddex bilood oo qura ayaan mar qura noqday oo kala jaado marna bilahan mar laba bilood inta kale oo dhan dalka gudihiisan joogay qoyskaagu madal joog baa soo dibad joog qoyskaygu inamadaydii waa weynaa waa kuwa halkan way wada joogaan qoyskayguna sanad walba yimaada baxda weyni qaybna halkaas joogtaa intoodii badnaa halkan ay joogaan xaasas bay ku leeyihiin hablaha qaar baa Ingiriiska lagu qabaa inamadaydu halkan ilaa 3 nin xaas ku leeyihiin oo degaynay joogaan qoyskaygii labaad ay bahda yareedna way joogaan marka nin xagaana degan halkanna degan oo labadiisu qoysba joogaan ayaana imika gurigan ay joogaan waa guriga shacabka waa gurigii qoyska bahda weyna ay lahayd ay joogeen gurigii kale bahda yarna xagaas degan guriga ad ku nooshay adigu ma adiga la misoo kiro guriga aan ku noolahay waa kiro $300 baan ka bixiyaa waxa ma iskale nire Soomaaliland ayaa iskale Ismaaciil weliga ma lagu xidhay ha inteen lag bad xidhnay waxaan xidhnaa 6 bilood baan xidhnaa waqtigii dawladii Maxamed Siyaad Barre cidina xidhay bariga ee jeelka toon noo taabtayna waxa Faysal Cali Waraabe maanta ah gudoomiyaha ururka UCID kaftan haygaatay madaxweynaha Itoobiya magaciisa ma taqaan ama la sanaa waan aqaanaa madaxweynaha maya prime minister ka baan u aqaanaa ina yaqaanaa okay ra'iisul wasaaraha Djibouti ma taqaan magaciisa Ismaaciil Umar Geyle magacaada magaci waxa la yiraahdaa magaciisu narisiro adag buu leeyahay runtii waan laqsanay ka aqaanaa magaciisa fahmaan aqaanaa waayaa barasaabkii ugu dambeeyay Ingiriiska wadankan xukumayay ee caalanka inasi Soomaaliland magaciisa ma xasuusan ma xasuusni laakiin in badan baan akhriyo oo arko wasaaradda daaqiliga u yaalaaba magaciisa ma ku sheekay waqtigaaga firaaqada maxaad ku isku laafsaa waqtigayga firaaqada imaka de waqti markii horena waan shaqeynay siyaasad ka shaqeynay baan inta wasaaradda ka shaqeynay intan damana waxaan ahay nin adiga jeer akhrista wararka nin waxaan ahay xagga diinta ku fiican oo diintana aad ugu dadaalayaan saydu aragtaa ugu dambeyntii mustaqbalka Soomaaliland 10 sanadood ee soo socda 10 sanadood marka la gaaro wallahi mustaqbalka Soomaaliland 10 sanadood soo socda waxaan rajaynayaa in isbedel weyn ka dhici doono hadii Ilaahay yiraahdo oo horumar ah oo adduunka uu noqon doono mid wax la qabsada oo haddaanu aqoonsi u iman uu noqon doono mid dhaqaale yeesha oo aanu u baahnayn aqoonsiga si dawladda badan u jira iyaga loo baahan yahay iyagoon la aqoonsan uu noqon karayo ayaan aaminsanahay